الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. runtii waxaan jecel oo kaliya inaan yarba faahfaahiyo inta wasiirku ka hadlay bay xigmadu ahayd laakiin maadaama anagu ceelka guntiisa ku jirno wasiirku hawlihiisu badan yihiin anagu xoogaal u nahay inta aan rabay oo kaliya inaan wax faahfaahiyo waa inta horta wasiirku sheegay waxaan ku shaqeynaynaa waa digreetada wasiirka oo dhammaan iskuul wal iyo gobol waliba haysto marka waxa weey mushkiladda imika jirta ee ardaydu maalin dhaweeyay waa arkayseeno qaar baad wax ka duubteeno wuxuu qofkii sharci ka dhiganaya qalad oo isagu galay ayuu haddana day nagu ciqaabaya waa tan imika wasiirku ka hadlayay qofkii qaladkii markuu galo waxa adduunyada qofku markuu qalad galo uu abriyo tama inaga mushkiladda imika in haysta caruurteedu ku dhacday waxa weey isagii ardaygii qaldan ayuu haddana isagii doodaya oo TV-yada tagaya oo wasaaradii aflagaadeynaya oo imika wasiirka ka hadlay habeenkii waxay ku hadlayeen waxay ka dhigeen go'aan aw daawud garweyne leeyahay waxaan TV-yada ka maqlayay waxaan haysto wasiirnimo haysto agaasimnimo haysto kormeernimo haysto daawud garweyne haysta anu waxba ma qabsan karo wasaaraddu wasiir bay leedahay waa kan ka dhawaajiyay wasiirku waa digreetadan anagu fulina ka xafiis imtixaan ahaan digreetada wasiirkaanu koobi ku leenahay qof kasta oo wasaaradda wax kasta oo wasaaradda kamida wareegtada wasiirka khusaysa anagu marka qaybtayadii u baahay tan aanu fulinaynay laakiin wax anagu aanu samaysanay awoodna umar xafiiska imtixaanaadku inuu ardayda Soomaaliland imtixaan ka joojiyo cid wax barashada talaabada ugu dambaysa leh dawaa wasiirka haduu rabo ma imtixaan ka joojin kara ogolaan kara go'aanka ugu dambeeyay wasiirka wax kasta oo anagu qabano report-ka imika wasiirku diga hadlay anaga siinay ilaa aanu isaga siinana waxba ma soo bandhigno waxa weey marka horta in ardayda iyo waalidku fahmaan waxaan waa go'aan wasaaradeeda go'aan qof qaadan kara qof arday imtixaan u diidi kara ama ogolaan kara ma jiro sharciga wasaaraddu ma ardayga imtixaanka ama loogu ogolaan kara ama loogu diidi kara yeenin horta badow noqonayna isla wuxuu fahanaa loo baahan yahay aniguna awoodu malihi taas waa taa ardayda iyo waalidkooda u sheegaya talabaad waxa weey sidii uu wasiirku ka dhawaajiyay waad ogeydeenoo sanadad dhan baan waxaan la dagaalameynay in ardayda 3 sano la aynu joojino iskuulo dhan oo 3 sano ah jiray digreetar u dambeysay wasiirku waxay soo afjaraysa xataa waqtiga alla siiyo wasiirkii kooriya uu siiyay ayaa ku ekaa digreetada wasiirkay ku wada ekaay waxoo dhaniba bataataba iskuuladii 3 sano ahaa oo ogeydeen waxa kamid ahaa Sheekh Madar oo Nuruddin Caalami Macaarif iskuulo badan oo noocaas jiray wixii oo dhan imika waxa weey 3 sano halkiiba lagaga soo guuray markii problemkii aynu ka guurnay filinay marka tayinta aynu gudubno ee digreetadii wasiirku noo timid ee leeyahay waxa iskuulada 3 sano laga joojiyay wax arday 3 sano ayaan loo ogolaan marka wasiirku waxa kharash wasaaraddu ku bixisay kormeerka guud iyo xafiiska imtixaanaadku way iskaalmaystaan kormeerka guud waxa intay awood u leeyihiin bay soo baaraan wixii ka awood badan xafiiska imtixaanaadka ay soo gudbiyaan waxa weey wasaaradda waxbarashada marka waxay leedahay sidii wasiirku ka dhawaajiyay oo imika casri ah serfaro ay ku jiraan ilaa 95 96 ardaygii sidii wasiirku idin sheegayay aynu imtixaanka eerka ka qaadnay 95 96 hadaad u baahataan waxaan tusinay natiijadiisii kuma ma sheegan karo qof kale kaarka ID kaarkiisii baanu haynaa oo computerized sidii wasiirku idin sheegayay marka waxa weey dadkuna wali waxay aaminsan yihiin waa ku dayd qofku shahaadi ka luntay baa noo yimaada wuxuu ku qoray shahaadayda hal ay siiyo waan qaato way iga luntay kuma oranayo marka hore wuu kugu deeyaan waxay aaminsan yihiin inaan documents jirin tan wasiirku sheegay anoo qalab casri ah haynaayo la kala garaynayo sheeg baa leeyahay iskuulka hay'adda rool numberkaagi kolku rool number xataa garay waa la kala garaynaya isaga ku soo dhigay maca sawirkii qofka markaas hadda wasootan ad qaadatay markaas uu ku leeyahay waan qaato way iga luntay oo maxaad u sheegi weeyay horta miskoodii waxa weey sidoo wasiirku ku bilaabay horta musuqmaasuqa hadayna inuu waalidkii iyo ardaygii aqoonyahankeenu la dagaalamin wasaaradda kaliya la dagaalami mayso shakhsina la dagaalami maayo xafiis imtixaan lama dagaalami karo miskoodii jirta waxa weey horta inuu dad noqono riyaliisa runta ku dhaqma bootintana sidoo wasiirku ka dhawaajiyay bal google kan aad ku imtixaamantii damala wax kale baad gashaana galo oo adduunyada meel 3 sano lagaga baxo ama meel la wada dhigto standard 8 iyo form 1 midina ma jirto waxa weey marka waa dhowr baab ay ardaydu u kala baxday wasiirku marka waxa weey mar walba waxa laga duulayaa oo marjac noo ah arday waxa jira midalan imtixaankii eerka ka xanuunsaday laakiin si regular ah oo midalan wuxuu leeyahay eerkii baa ka xanuunsaday anigoo kaliya
markaa qalad bay ahayd waxay in imtixaanka dib looga qaado intuuna foominka tagin laakiin lodkiisii uu la socdaa oo mesela 14 maalintii imtixaanka la galiyay dhakhtarka galay uu isqariyo anagu dhakhtarka imtixaanka waanu ku qaaday isbuu soo sheegin mesela ardayga markay dhakhaatiirtu soo cadeeyaan in iskuulkiina soo cadeeyay inuu 14 ka baaqday waxa weey marka aan natiijada wasiirka ku celino waxa la go'aamin karaa kaas oo kale wasaaraddu kolka guddi baa jira waxaan board bay dawladda wasaaraddu leedahay aw ka madax yahay wasiirku kolka barnaamijka dhan soo diyaarino go'aanka dambaysa la gaaraya kaas oo kale marka waxa weey cayn kaasa xaaladiisa dawaa la eegaya go'aankii wasaaradda soo saarayso inuu sugayna laakiin taynu ka hadlaynaa dadka ugu jiidgoyna wax weey oo wasiirka tusnay arday sanadkii hore eedaha ayaa sanadka foofor inoo soo fadhiistay waan tusnay wasiirka waan soo qabanay sanadkii hore aanu haynay shahaadadii sanadkii hore aanu siinay baa la badbedelay waa timka wasiirku ka hadlayay oo ama waxay bedelayeen date-kii isagoo ka baxay 14 15 ka soo dhigay 13 ama magacii baa la bedelay oo arday 13 ka baxay oo xaq u leh inuu fooforka u fadhiisto ayaa shahaadadiisu qof labaad iyadana siiyo qof labaad oo ka bixin 13 oo boodaya ayaa magacii qof ka bedelay dadkii washaadaha noo sameeyay qaar kamida kuwii macna ardaydu waan wada qabanay iyaga bataatanba laakiin kuwii sameeyay mid kaliya imkan laga maqan oo lagu daba jiray si ay kii kalena maalin walba maxkamadda la geeya go'aanka ugu dambeeyay ilaa wasiirku maxkamadda marka ugu dambeeya wasaaradda loo soo gudbiyay go'aanka gaaraysa imika waxa laga maalin walba maxkamadda waa la geeya waxa lagu daba jiraa cidii waxaan sameysay waxaan markaa ka digaynaa maanta wasiirkoodu ku yeedho noo ballamiyay annagana noogu yeeray waxa weey in dadkan haynu u sheegno meeshan cadaawad arday la cadaadinaya ma jiro mushkiladda inaga ardaydeena haysataa ama waalidkeena haysataa waxa weey markiiba waxa guleeyay maxaa caruurta loo dhibaya maxaa caruurta loo cadaadinaya meeshan cadaadis ma yaal caruurta waxba loo taraya haddaanu faa'iido ku ognahay aniga ilaa 7 caruur iskuulada iga baxay haddaan faa'iido ku ogaana adeer bootin lahaayo gacanta ku haystay shahaadoodu waxa faa'iido ay leedahay ma jirto horta in waalidkii ardaygu fahmo waxa soo haray kuwan imika doodaya meelaha ka hadlaya waxa horta qofku uu soo garnaqsada dhaqan baynu leenahay war soo garnaqso horta miyaa laga gar daran yahay mise waad gar leedahay inaad daqsatid weey anaga amarka uu siirku dhasiyay waxa weey ardaygii 12 sano dhamaysta imtixaan ka qaada waki afkiisa imika uu siirku ka sheegay haddaba waa lagu baarayaa uu cid ku cadaawad kale meesha waxa la eegayaa 12 sano aw jaamac oo dhamaysatay haddaad 12 sano dhamaysatay nin walba ma qalde waad dhiganaysaa haddii aanad dhamaysan wixii kale sheegaysaa waa waxa adigu aad sheegaysaa laakiin horta waa adigu waxa doonto sheego laakiin in laga sii joogo horta qiro wixii aad sheegaysaa deesh adeeg ku taayay sheegtid laakiin inaan gardarra jirin meesha inuu wasaaraddu ka gardarrayn oo xafiis imtixaan ka gardarnayn de qiro way watan waxaan ku shahaadadii 13 sanadka waxay noo galay idinku saxaafada ogaada balaayada damalaha ka heesano idinku qudinu khayrka inaan isbuunbuurisan weey in ardaydu mudaharaad sameeyaan oo buuq sameeyaan waxba ay soo kordhinaysaa ma jirto idinkana waxba idin soo kordhin maayaan iyaga su'aal kaliya ma weydiisan waan ay arkay saadimka su'aal ula boobaysan wasiirka la idin su'aal aan ku weydiino iyaga kuwa ka duubaysan maxaad u weydiin su'aal ardayda ee oran weydeen goorma dugsiga dhaxa ka baxday يعني واحد أركز إذا يقولون البلايا دي هريرة هتكوّطان واحد فائدة كيني سنة متشرتو واحد وين مركب وبرها بدأنا وين كتيرنا عروتين النوي قلدي والد يقولوا واحد يقول صصب واحد يقول يهين ويليهن مركب واحد يقول والدك واحد يلهدين وين تهريبنا تنينك هدونك قريب إلى هاي التهريبة كم يعني كنت امتحانك اللي ما يقول امتحان قريب وتهريبين كور إيه استارة تهريبي قارب سنة حمر لقى سود بتشيني كوي سكندريا سوق سريس ومال هذا marka waxaan waa korba marmarsiyaha idin dhigayaan waxa weey xaqiiqdu waxa weey Soomaaliland xaqiiqda aan isku sheegno war waxa sida uu ka wasiirku inoo sheegay dastuurkeena dalka aynu u sameeyay ku mideysanahay Soomaaliland waxa inoogu qoran sida wasiirku sheegay dugsiga hoose in 4 sano ardaygu inoo soo dhigto 1 ilaa standard 4 ka sana 5 ilaa 8 form 1 ilaa form 4 nidaamka uu wasaaradda waxbarashadu wasiirku digreeto ku soo saaray annaguna aanu waardiye ka hayna anagu waardiyada waxna تقريتوينك وسيرك قرنك إلى لين تقريتوي وسيرك دوا هاي قرن أنا كان على فريا أنا امتحاناتك وكو قف لو نيك قدامي امتحاناتك أنا نيك لو عمل هيو هذا 3 سنة أنا مسي كرو تقريتوي كو قرنتها أرد 3 سنة أنا مسي دين كرو هرتي وين السايس كله فهنا حتى بنيكي واحد كلا هايستا سيرك جود بور بوليه سمير قبل واحد هايستا لك هاي حتى الدوكيومنتيز هايستا حق هذول هذا هاي واحد تكون دوليسو لك هاي بور كان دلور يلا هردي
كل كاس وجوان كقول بينه وسيرك كل واقي إنك واحد نسيق بيننا إن نضطك حقيقة ترتقى وشابنه أرضي بدن باكو قناعي لكن مركي إيدي ما دام قلوا صحافة ضاي كل أرضنا دي إيمانا يعني وحقه إن الأرض ويديسان والأرض يوم مجرد بعض لا ده مسجر ترو ويدي أنا أنا جوا كيلو أديك أكوا كيلو سعرته وحبرسنا صحفيه بالأرض جا كوي ما واحد ويديسان هذا أفرتي سنة دوكسي قال نحن صورنا ما يسوي إيه كي ما كبح لها سنة كيف كبح لي نو ويدي أنت نو ويدي أرض جي كبح تيرين فورين بس أنا كان فور نوفر السنة هذا أركتان أرض تيرين فورين كبح يوم أديني دبي وسعرته وحبرسنا عليه أنا قاعد قاعدنا لكن مر والب واحد يدي شيء دونان إنه وده ديجنا يكو سنة يعني سديدات يفهمون مشروع بقى إذا كان يودي مشروع بقى إن لو وده نكتب فصل سديدات فصل دوسي سريع الدنيا كي كتعلا فالسور راديو عالم كمية لقى متشتو أرضي واحد كل دود يعني يدلي ما دينا يستار كدورتي واحد يقولين ومع والد كل دود يعني ويصير كولي منين أفرتي سنة نكتي هاي أفرتي سنة شرعي مية هرت بلا كل شيء تمعنا ولا هرت قرن قصتها أفرت سنة دقتي إن كري يسوي 14 لا أيو سكندري فورمك إسكت جاي قالت خنا يسقى على هاي والدي إيجا نوجا مخاطي جود الوالدين تو كلام سير محمد أحمد علي ويقران وهم بلا ربض العيوب أنا جا كبحيني سيركم ما أنت أنا لما تشوفين أنا ما أدري نروحكم مقنع وسيركم فرضكم مقنع واحد ساجن إني واحد وارهم إيه كانوا المبحين العكسيس فورمو كانوا المبحين هذا ما تهي تريمت وسارد اللي جريو دم بيجوا كلام ما تهي هذا بدم بيجوا أي كلام وسارد ده واحد برشلو واحد هيرو وبريو بهاي ما هي الصحافة تجان إن مالها كبوقنا ما هي واحد ودم بيجوا عنه قالوا وسارد من نجع في لسان مثل نجع في ميسان أنت أصلا مش هيكلوا كوكبنا ودم قالوا قرك قالوا ده واحد برشلو كقلام لكن يجي يصير واحد قرليهين أي ده صحافة دي مركز هال كان نجا كويل أنا قبته وعي كوا ما واحد ما قدروا كمتير مركز واحد لا يريحي أنا قد ذكرت له وسيركم بنفولنا نور الله مقام وأنا صدق سنة والأرض جاء أفر سنة لما يستوعبكوا هاي ستامجرتوا كو قف كيلو وكبك إيركي أما التهريب باك كم مقنع الدوكمنتيس عد هيستبوركوا وكينا يا واحد لوترنا يا ونتردين فوردين لوتكا قلي إنه يهي لوتكا حتى هاي نيكو ديري كلامتشلو مركا أما امتحان هلا قاعدو أما واحد قيمين هلاقو وغاين ديت كان واحد دينا أرض كهر مرة هذا المنهج كيسي وحنا حين أرضي هذا بعد الله هاي بعد الله بحث عمر مركا إنك 14 15 إيه كبحي سنة كدنبان نودو عيننا إنه درجة في عندكم جدبوه مركا وحوي تور كان صدقنا تفافيسان واكا وحوي كي مركا يسوي wax loo jigaan haystaale wasiirku markuu maqay yahay anaga uga wakiila wixii imtixaanaadka ku saabsan waan ururinayna isagoo miir qaba anaga hanoo yimaado guddigu wasiirku magacaabay guddigaygaas hawsha qabanayna hal la yimaado documentisku wato iyo cabashadiisa laakiin ma aha in buuq la sameeyo kan waxba kordhimayso hadii buuq sii socdana wasaaraddu waxay awood u leedahay hatta form 3 inay ku diido oo guddiga discipline lagu fariisiyo horta waa inuu arday iyo macallin kala ahaana waxaan aad iyo aad halkan uga hambalyeynaya guddigii waalidiinta maxamuud axmed cali oo runtii qaladkii caruurtu gashay apologize ka bixiyay caruurta waalidka ay anagana guddigii loo saaray arrintii gacantaan ku haynaa wasiirku u saaray qolada waalidiintana waanu aragnay laakiin saxaafadu sidaa inay ku joojiyaan iyagana cudurdaarkii waan ka qaadanay way sheegeen in caruurtoodu qaldan yihiin inay si qaldan wax u dhigeen inay wax annaguna halka waxaan u maarinaa mahadnaq anoo afka wasiirkana ku hadlaya runtii waanu daawanay waana ka aqbalay arrintiina guddi baa gacanta ku haya wixii documentis aynu isla garanay in naloo keeno sidii baa naloogu keenaya laakiin qofna yuuna ismacaashiin oo waxaana aan xaq u lahayn yuuna doondooni tan imtixaankana wasiirku markuu firaaqa yeeshay dambe ee kamaantu naga dhamaato shir firayd buu qaban doonaa insha Allah date-ka anaga sheegi doona sidoo u sheegayna wasaaraddu waa u diyaar tobanka u dambeeya ee imtixaanku tuur ma dhaafayo sidoo wasiirku sheegay laakiin date-kii sidoo wasiirku sheegay isaga da ku dhawaaqo dawladda dib baanu ka soo qaban doonaa anaga saxansanano waxa lagu xisaabtamaya abaaraha dhacay meel waftiyo wasiirku imika noo kala diro waxa loo kala baxaya bariya galbeed xoga badan baa la soo ururiya date-ka waan ku saleynaynaa laakiin tuur ma dhaafayo إن شاء الله وليتكم شيء دونا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته